بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحندتك الصوماليات halkan usoo istaagay in aan ku bogaadiyo farxadda wanaaga ay xusuusta mudan ee ay leedahay maalintii rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam oo dhashay mawliidkii waaye maanta hay-adaha dowladda oo dhan waa la fasaxay qaanuunka dalkan ay ka mid tahay maalinta mawliidka maalin fasax inay tahay public holiday waxa afka qalaad lagu yiraahdo marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan kuwa shaqada fasaxa ka ah kuwa kalaba waa ugu hambalyeynayna waana ku bogaadinaynaa maanta oo kale waa maalin xusuus mudan farxad mudan maantii uu dhashay rasuulkeena subhanahu alayhi salatu wassalaam waaye maanta waa maalinta ugu muhiimsan oo inaan soo xasuusana ay tahay akhlaaqiyadkii dhaqankii subhanahu maxaan ku yiraahdaa tawjiihintii ummadda muslimiinta uu hayay diintii oo ilaahay ku soo dejiyay rasuulkeena alayhi salaam quraan kariimka ah iyo rasuulka intuu joogay hoggaankiisa subhanahu iyo dadku inaan xusno ka sheekeyno ka hadalno isxasuusino maalin mudan waay nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam muddadii oo ummadda uu noolaa ee adduunyada uu joogay maalintii maxaan ku yiraahdaa wixii ugu horeeyay uu soo degay qaarul xira ilaa maalintii uu dhimanayo aayadii ugu dambeysay oo quraanka ay ku soo degaysay inta u dhaxaysay dhaqankiisa sidoo ahaay inaan intaan akhrino inta taqaano akhrisayna ummadda ay u sheegto ku daysano daba kacno wixii uu sameey jiray aan sameeyno wixii uu dadka ka celi jiray aan ka harno waaye zamankii uu noolay ka duwanaan ku noolnahay duruufaheena gaarka oo hadda jiro wargeys aan jirin aan leenahay laakiin mar walba xusuusta nabiga calayhi salaatu wassalaam zaman kastoo aan joognaba waxay ku leedahay dabaqaad iyo raacid iyo dabagelid ay ku leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inaan xasuusiyo u sheego walaalaha siirada iyo maxaan ku yiraahdaa taariikhda rasuulka calayhi salaatu wassalaam yaqaanay in ay walaalaha kale u sheegaan la isdhageysto la maqlo ka bacdina lagu camal falo lagu daysado dariiqiisa subhanahu la maro wuxuu naga rabay aan ka harno wuxuu na farayna aan fartoonaano waa maanta muhiimadda ay leedahay waa maalintaas waa maalin farxad leh waa maalintii ilaahay adduunyadan inuu si kama dambaysa ay u toosto oo ilaahay oo muxuu ahaa awaamirtiisa iyo wanaagiisa uu ku soo degay naxariistiisa ay ku timiday naxariistaas maanta oo kala bilaabatay oo rasuulka dhalashadiisa ka soo bilaabatay inaan ku faraxno inaan qaadano inaan ku daysano inaan daba kacno ayaa waajib nagu wada dhamaanteen dadka Soomaaliyeed markasta oo jawaab u hambalyeynaya fursadana laga faa'iideysto fursad tacliimeed fursad xasuusin fursad tarbiya awlaadeena aan ku tarbiyeyn waaye fursadda waxa ay leedahay aan uga faa'iideysanahay hadii aan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh